dhibaatooyinka ka jira aniga aad iyo aad aan u dhibsanaynaa galmudug in la dhibaateeyo sax maaha. galmudug maanta waxay mudan tahay sidii lagu dhisayna waa looyahay markii la dhisayay isjiidkii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay wixii ka dhexeeyey puntland iyo galmudug maalinta ayada ka dhexeeyey ahlu sunna iyo galmudug wixii maalintaas ka dhexeeyey haddii intaasoo dhan maanta inta la dhameeyey in dhibaato kale lagu abuuro dhexdooda waa nasiib darro. waxaan ugu baaqaynaa arrinta ayada in laga waantoobo Soomaaliya si ay u horumarto. runtiina inay galmudug nabad noqoto Soomaaliya oo nabad noqotay barkeeda waa runtii haddii galmudug ay nabad noqoto Soomaaliya nabad ay noqonaysa. marka in galmudug oo federalism ogol oo is hogaaminayso oo ahlu sunnada la wadato runtii waxaa allaala wixii ka dhex jiro in dhibaataa in lagu abuuro aad bay dhibaato tahay. runtii annaga aad iyo aadaan ugu faraxsannahay madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf inuu dagaalkacay baa ku soo raaco oo maanta uu gurug ku yimaado waana runtii wax ku dayasho mudan iyo runtii in marka hogaamiyihii noocaas ahaa ahlu sunnana nabadda ka keenay maanta suntiisii alaha qaarkeed loo galo runtii arrin aad iyo aad u qaabdaro waaye. adduunweynaha iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shacweynaha Soomaaliya qeybihiisa kala duwan iyo walaalaheen reer galmudug waxaa laala wixii yaroo jiro in hoos loo fiiriyo laakiin wanaagga maamulka iyo hoggaanka aad loo tixgeliyo runtii arrintaada waa kacodsanayna runtii arrin aad aad u fiican ay la tahay. dhinaca kale CIC sharciyadeedu waa la sheegay CIC marna maaha caqabad Soomaaliya dad badan oo siyaalo badan u fasiray waa aragnay wax kama jiraan. CIC waa horumarinta federaaleynta waa horumarinta dalka Soomaaliyeed waa ku dadaalka amniga iyo Soomaalinimada iyo isdhexgalka. waan ku rajoweynahay madaxweyne Axmed aniga insha Allah in sida hadda ay madaxweyne Cabdiweli iyo madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf ay baabuurta isku raacaan in annagana ilaahay una gaarsiiyo in loo raaco awalna waa loo raaci jiray haddana in loo raaco rajaynayna waan ka shaqayn doonaa badilaah. arrimahan haddii dastuurkaan ka soo qaado dastuurka Soomaaliya meelo badan la soo maray meel gaar la soo maray charter la soo maray meelaan la keenay laakiin waayadan waxaa u malinaysaa in la rabo in meel hadda aysan ku habboonayn lagu hayo marka sax maaha. anaga dastuurka in dib loo eego ummadda Soomaaliyeed loo bandhigo dhibaatooyinka jirana la xalliyo khilaafaadka Soomaaliya ka jiro dhinac kastabana sidii loo xallin lahaa. haddaan dastuurku la xallinin dhibka Soomaaliya ma xalismaayo marka dastuurka in la xalliyo waa lagama maarmaan. dhinaca kale amniga waa la sheegay oo marar badan aan ku celinay shabaab dhibaatooyin badan uu dalka ku hayaa marka waxaa noo muuqata in dowladda dhexe arrinta ayada aysan dhibaato badan ku haynin shabaab in lala diro. haddii shabaab lala diriro waayana ummadda Soomaaliya dhibaatada kama baxayaan jidadka waa ka go-yihiin meel la maro male waa la isku rafaadsan. marka saas darteed anaga waxaan leenahay shabaabka lala diriro sidii lagula dirira taladeedana waa in la helo. marka CIC waxyaalaha ay ka tashan doonto in shabaab sidii loola diriri lahaa ee ummadda looga qaban lahaa maalin walba inay is-hadhigaan naftoodana hadhigaan ummaddana ay hadhigaan wax la fiirsan karo oo runtii la ilaalin karo maaha. waxaan rajaynaynaa caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed arrinta ayada ah inay fiir ka yeeshaan oo runtii shabaab loo diriro. waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheen AMISOM dhiigooda loo horay bani aadanka wax hore ku sii waa leeli kara laakiin in dhiig ku sii waa nin walaalka ah dhiigoodayna siiyeen inaan anagana ka faa'iidaysano oo ciidamo dhisano oo hore u socono ayagoo sharaf ku baxa annagoo ciidamo leh annagoo nabadda ay ahayd muddo badan ay nagu qaadatay ilaa hadda arrinteeda nooma suurtagelin ayagoo inay weligood joogaana ma suuragelayso. marka saas darteed waxaa loo baahan yahay arrinta ayada in go-aano laga yeesho fikirna laga yeesho ummadda Soomaaliyeed sidii nabadeeda iyo dowladnimadeeda iyo sharafteeda oo dowladiidka oo duurka ku jiro ay isaga qaban lahaayeen talooyinka loo baahan yahay oo CIC ay rabto inay wax ka qabatay ka mid. dhinaca kale federaaleynta Soomaaliya federaal ay qaadatay ninkii wax kale ku fikiraayo waqti kale la hagaagsiiyo. Soomaaliya federaal ay qaadatay federaalkaas horumarkiisa maanta waa ujeednaa
alxamdulilah gurigu siday ahaan jirtay sida maanbeyntahay waa loo jeedaa waxaana looga dayanayaa puntland federaalka runtii waynu ku horumareen nabadna way ku heleen runtii waxaan rajaynaynaa maamulka kalena meeshay puntland gaartay inay gaaraan dowladda dhexe baawurkeeda lama diidana hogaaminteeda lama diidana laakiin wixii aan qaadano sharciga inay nagu hogaamiso haddii ay diido wixii annaga aan qaadanay oo sharciga ah oo constitutionkeenu u dhigaayo ummadda soomaaliyeed ayadoo dagaalo sokeeye iyo qabiile iyo wax walba ay ku dagaalantay wixii ay ku heshiisay ay hubka ku dhistay oo dowladdan maanta aan ku naaloonayno lagu soo dhisay lagu soo heshiiyey inaan federaal qaadanayo marka federaalku waa in la hormariyaa dalkana saasuu ku horumaraya nabadan insha allah sidaasaan ku gaari doonaa haddii ilaahay oo la gaarsiiyo dhinaca kale doorashooyinka sanadkii hore oo ay maanta federaaleyntu markaas maamuladu markaa la wada dhisay runtii waa la dhamaystiray habaa la isku doortoo lagu heshiiyey haddana hab lagu heshiiyey in isku doorto bay noqon kartaa laakiin qola shaati ayaga isku cabireen in ayaga ay doorasho ku dhigaan siday rabaan ay u sameeyaan soomaali mana cutumi doonto mana suura geli karto waa in wax laga heshiiyey dadka oo dhan ay ka arkaan danta soomaaliyeed laakiin in qola danteeda laga feeriyo ma annaga waxaan leenahay laga heshiiyo hana laga wada hadlo ruwaay badhow waa kaga hadalnay mabaadiyan kaga hadalnay laakiin tafaasiil hoos looma gelin tafaasiisha waxaa loo baahan yahay in inta la galo kadibna wixii lagu heshiiyey baarlamaanka soomaaliyeed oo soomaaliya dhan u dhantahay la geeyo baarlamaanka inuu marka ansixiyo ama wax ku daro ama wax ka dhimo ama uu diido ama u ogolaado laakiin lama dhihi karo in qolasay rabto u wadwado lama qaadan karo marka annaga caalamka iyo dowladda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in ummadda soomaaliyeed aan dib loo celinin ummadda soomaaliyeed in hore loo wado dib heshiisiintu la dhammaystiro dagaalada oo kuwa dowladiidka ah si wada jira oo aan gacmaha layshaystir loo galo dowladduna ay gacan ka dhiibto wax allaala wixii caalamka ka yimaado wax kastoo yihiin logistica iyo saanad iyo wax kastoo yihiin ama dhaqaale in dalka loo qaybiyo laakiin haddii siyaasad loo isticmaalo qola say rabtay u maamusho siyaasaddoodana kuma guuraysanayaan dalkii dadkana waa ku lugo-ayaan sababtoo Soomaaliya waqti ugu hub badnayd oo hub soo gaaro maantana aniga ciidamadeena maamulada maalin walba rasaas la'aan baa loo dhibaato ku gaarta marka in rasaasta la siyaasadeeyo ayaga bakhaaro ku haystaan annagana nagala dhigo kuwa aan shabaabka ula tirinaynin shabaabka dhibaatihiisa annagana haystaan maalin walba hortaada wax lagu qarxiya jididkaa naga xiran dhibaatooyin badanaa ku jirta marka waxaan codsanaynaa in caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed ay fiiriyaan arrinta xaqiiqda la fiiriyo inta barnaamijka la iska dhaafo wax xaqa Soomaali xaqeeda iyo dareenkeeda in loo soo noqdo taasaan rajaynaynaa 2020 waxaan rajaynaynaa Soomaaliya in xaqa isla ogolaatay ay wax ku dhisato taas ayadaana Soomaaliya oo dhan laga rabaa laakiin gaar ahaan in hay'adaha dastuuriga ah iyo maamulada iyo dowladdu inay wax ka gartaan dadweynaha loo bandhigo waa baahantihiin waxaan idin rajaynayaa kun shirka waxaan u rajaynayaa